horumar la'aanta iyo dadka inay isku filnaan gaari waayaan taas ayaa u sabab ah daruufo aad gacantaada isaga feedi kartid ayaad u xayiran tahay okay micnaheeda ma aha inaan idin leeyahay orda ee waasha ee carar may caqli baad leedahay hal abuur baad leedahay wax soo saar baad leedahay karti baad leedahay karaamo baad leedahay sharaf baad leedahay heybad baad leedahay talent baad leedahay waxbaad u taagan tahay raadi waxaad u taagan tahay waad heli doontaa duruufta waxaad kaga bixi lahayd markaad ogaatid oo aad adiga isweydiisid wax qabad inaad leedahay wax soo saar inaad leedahay aad dib isugu noqotid waad helaysaa laakiin haddaad dib isugu noqon halka aad fadhido sidii eygii alwaaxa ku dheganaa ayaad ahaanaysaa waadna fadhinaysaa aan ka gudbo markaa intaasi dhiirigelinta marka aan ka gudbo qof walbaba wuu samayn karaa qof walbaba wuu samayn karaa hadda ka dambe marka aad aragtid inaad wax qaban karin waxaad soo qaadataa eygii alwaaxa la fadhiyo ma eygii alwaaxa la fadhiyaa tahay mise eygii lasoo tababare ee alwaaxa intuu iska siibo banaanka isaga tuuro adeega halka maroo xanuunka qaataad noqonaysaa maanta ka dambe isweydii markaad aragtid inaad hore u soconin su-aashaad isweydii haddii aan u gudbo markaa maxay tahay daruufahana haysto ee aan waxa aan baranay cilmiga aan maalin kasta maqlayno macluumaadka aan helayno aan u dhaqangelin aan nahay eena haysto muxuu yahay maxaan araajo u nahay ee aan qorshe iyo jadwal u dejisan la'nahay maxay tahay sababta maxaan haysto waxyaalahan aan maalin kasto arkayno macluumaadka aan dhageysanayno maxaan u hergelin la'nahay ee nolosheena aan ugu caawin la'nahay ee aan u bahdilanahay waa maxay ee dhaqaale la'aanta u nahay waa maxay ee dhibaatada noo haysato waa maxay afartan qodob haddaad dhaqan gelisid noloshaada isbedel badan ayaad ku arki doontaa mentally ahaana maskaxeed ahaana waad isbedeli doontaa qodobka ugu horeeya waxaa weeyaan waxyaalaha waxaanoo dhan aad u samayn weysid timing wax la dhahaa ayaad u samayn weysid timingka maxaan ka wadaa waa time time maxaa u taqaanaan waqti ama saacad qodobka ugu horeeya ama xirfadda ugu horeeya waa saacad inaad baratid saacadda kugu socoto iyo inaad waqtiga ka faa'iidaysatid waqtiga waxaan usii kala qaadi doonaa markaa laba qeyban u kala qaadi doonaa qodobka koowaad oo ah waqtiga kusoo maraayo second kasta kusoo maro ku dhaafa dib kuguma soo laabanayo maalin kasta 24 saac markay ku dhaafto waxaa ku dhaafay 1440 daqiiqadood daqiiqadaha ku dhaafeen dib kuguma soo noqonaya ma isweydiiso maxaad kaga faa'iidaysata ma isweydiisa habeen kasto haddaad isweydiisanin dib ugu noqo saacadaha iyo waqtiga ku dhaafayo ayaa waxay ku dhaafinayaan sidii eygii camalnaad halkaa fariisto ood la fadhidid musmaar la fadhidid maxaa yeelay duruufta ku haysato iyo waqtiga aad kaga faa'iidaysan lahayd ayaad isu keeni laadahay qaybta labaad isla qodobka labaad ee waqtiga ama timeka ah waxaa looga faa'iidaystaa wax kasta oo aad samaynaysid waxay u baahan tahay waqti waxbaad bilaabaysaa way ku hagaagi waayeen waxaad leedahay ma hirgelaan waad ka soconaysaa wax kalaad bilaabaysaa waad ka soconaysaa wax kalaad bilaabaysaa waad ka soconaysaa wax kalaad bilaabaysaa macnaha waqti ma siinaysid waa dhibaatada ugu weyn dad badan haysato oo marka aan arkay ee aan la fariistay inaan caawiyo aan damcay haysato inay iyaga iga cilmi badan yihiin oo iyaga iga aqoon badan yihiin oo iga caqli badan yihiin laakiin dhibaatada ay ka haysato war waxaan waad bilowday waqti geli waxaan waad bilowday waqti geli tusaale haddaan idin siiyo maadaama aan ahay qof baraha bulshada ku jiro dad badan ayaa ila soo xiriira oo siyaabo badan ila soo xiriira waxaa kamid ah dhalinyaro bartay waxaa la dhahaa graphic design waxaa la dhahaa barta designka bartay ha noqoto inay web design sameeyaan ha noqoto inay logo design sameeyaan ha noqoto inay video editing sameeyaan ha noqoto inay photo editing sameeyaan ha noqoto inay thumbnail sameeyaan way markay ila soo xiriiraan waxay igu yiraahdaan ugu horeysa waxa weeyaan xaluu shaqaan u baahanahay fiidiyoyadaad inaan edit gareeyaan rabaa adigaan rabaa inaan kula shaqeeyo bal u fiirso macnaha aad ayaan u jeclahay dhalinyarada inay shaqaystaan shaqo abuur samaystaan dhalinyarada shaqo abuur ay samaysteen maasha Allah anigana iyagana aan kala faa'iideysano anigana farsamada ma aqaanay sida fiidiyoyada loo jardiray waxaas oo kale aad iskuguma fiicnin iyagana ay qabtaan anigana aan maxay tahay fiidiyoyo qurux badan aan soo saaray maadaama aniga xigmad iyo cilmi aan hayo waxaan raadinayay oo aan dabagal ugu jiro muddo sanad ah inaan helo qof sidaas ah oo ila shaqeeyo oo fahmi karo oo isfahmi karno mid kasto ila soo xiriiro waqti ayaan siiyaa waxbaan u diraa waxaan ku yiraahdaa okay fiidiyowga soo edit garee sawirka ii soo samee waqtiga qaado maalmo kadib wali ani waxaan ku jiraa wali waxaan ku jiraa tijaabo qofkaan ma wada shaqeyn karnaa macnaha qof diyaarsan oo shaqo diyaar u ah miya may dhalinyarada ma jirto waxay sugaay malaha
laba maalin hadday wax ii soo diraan maalinta saddexaad waxay leeyihiin haye mana qaadanay mise mana qaadanaysa ma kula shaqaynayna mise ma kula shaqaynaysa go'aanka adiga iskama lihid marka qofka uu rabo inuu cid la shaqeeyo ama uu shaqo codsado oo interview loogu yeero qofka uu interview galo waa inuu sugo interviewga jawaabtiisa marka aan raba aniga inaan qaato qof video editor ah videoyadayda ii edit garaynayo graphic designka bartay loogada ii samaynayo bartay markaan qaadanayo ani waa inaan waqti siiyaa waqtigaasi aan siinayo micnaheeda ma aha qofkan inaan maalinta ugu horeyso intuu interview ii soo gala aan dhahay okay shaqo tag ma aha waxaan siinayaa hab xiriirkiisa sidoo aniga iila xiriirayo waxyaalaha ii soo samaynayo sidaan ugu qanacsanahay maxay ahaday in waxaan ay yihiin waxaan qaadan karo qofkaani ma aha keli inuu wax ii sawiro keli ma aha hadalkiisa xiriirkiisa waxyaalaha uga baahda inuu run sheegayo inuu khiyaano wato waxaasoo dhan seen ku ogaan karaa waa inaan waqti siiyaa ma aha maantuu isoo gala berri maxaa u baran waayo ma aha waqtiyaan siiyaa muddo sanad ah ayaa dhalinyaro kastoo ila soo xirta aan waqti siinayo wax u dirayo اسبوع مد الى جوجا ملها اسبوع markuu dhamaado wuxuu leeyahay ma iqaadanaysin yaad iqaadanayn inaan ku soo dir macna ma sameynayso ama qofka wuxuu leeyahay ma jawaab isiisid waa deg ku jiro waxaan maanta marka u soo qaatay waxa maalinta ila soo xiriiray wiil la yiraahdo macaash la yiraahdo macaash markuu ila soo xiriiray Facebook ila soo xiriir wuxuu dhahay xalwana kula shaqeeyaan raba oo kusoo dhaweynaan ku dhahay maadaama ila soo xiriirtay soo dhawo فيديوهان أدري waxba uma jawaabin fiidooyo kale u diray waxba imuusan soo dhihin fiidooyo kale u diray markaan la xiriirtoodo ila xiriiray hab dhaqankiisa sida uu wax u wado micnaheedu ma aha anigana asaga ku shaqeysana dhalinyarada aniga ku shaqeysana ma laakiin waxaan rabaa qofkan aniga isaga aan wada shaqeynayno inuu noqdo qof qoyskayga ka tirsan oo kale maxaa yeelay qofka adiga ku shaqeynayo ama wax ku qabanayo waa inaad siisaa 100% ixtiraam 100% wax kasto uu ku qabtana xaqeeda inaad siisaa waa laakiin goormay noqonay waqti u baahanta qofka inaad fahantid ma aha interview markiiba intuu galaan dhaha qofka okay interviewga sagalaysaa shaqada maanta qaadanaysa waad qabanaysaa because qofkii farsamo qabanaya macaash waxaa u malaynaa muddo 12 casho ah haddaysan ka badneen ayuu ila wadaa ila shaqeynaya oo aan arkay shaqadiisa u boga hab xiriirkiisa hab dhaqankiisa sidoo hadaladiisa wax istaba marsan malaha wax been uguma imaado wuxuu qaban kari waayo qaladkiisa wuxuu dhaxlo waxaas iga qaldamay anigana waa u sheegay qaladkiisa markaan u sheego uu qaatar hal galno bixiya fahmt waa waxyaalaha aan ka waayay inta badan dhalinyarada hore ee aan helay al macaash sidii ayaan macaash ku wada shaqeynaa ma sha Allah aadan ugu mahad celinaya maanta inuu daawana malaynaa ku jira asxaabta daawanayso macnaha u soo qaatay wax kale ma aha waxaan rabaa dadkeena waqti ma sugaan timing ka xun waqtiga sida loo isticmaalana ma yaqaanaan waxaan waad sameysay waqti galina ma yaqaanaan waxaan waa bilaaba hadda waa inaan natiijada helaa maanta waa inaan natiijada helaa berri waa inaan natiijada adduunka degdegaas kama jira hadda artaan wadamada horumaray waxa lagu dhaqtar hadaad u baahatid waad wacaysaa appointment raadsanaysaa waxa lagu dhahayaa bil kadib ama 2 bilood kadib aad helaysaa appointmentigaada waad inaad sugtaa waad xanuunsan tahay waad ku qasban tahay adduunka orod ma jiro degdeg ma jirto lacagan dhiiba la ii hormariyo corruption ko adduunka waa laga gudbay marka adduunka degdeg ma jiro dhalinyaradeena waxa horumarka u gaari weyseen waxa iyo gabdhaba wiilal iyo gabdhaba iyo hooyooyinba aad waxba u qabsan leedahay waxa way maanta aad koorso qaadanaysa waxa koorsada berina natiijadeeda hesho maanta koorso aad iska register garanaysa berri waxa harta koorsada inaad hadaad English inaad English ku hadashid sidee ugu hadla English waqti u baahan inaad waqti geliso time ay u baahan tahay hadii aad aragtaan dadka qurbaha imaaday marka wadamada ay horumar aad timaadid oo luqad aad baranayso waxa lagu leeyahay luqadan waxaad ku baranaysaa 420 saacadood inaad qaadatid 420 kaasi saacadood oo isku xiran inaad qaadatid ma qaadan kartaa waa door bilood hadii aad tagteen hadda jaamacadaha hadaad aragtaan marka jaamacada gasho waxa lagu leeyahay 360 saacadood waxaad ku qaadanaysaa practically 400 saacadood ama 250 saacadood waxaad ku qaadanaysaa theory aad ku qaadanaysaa waa lagu kala sheegaya saacad kasta haday hal saac ka dhiman tahana laguma gudbinayo waa inaad soo sugtaa marka saacadahaasi maalmaha kale saacadahaasi saacadaha aad soo buuxisaa aad u samartaa hadaad dhibtootid hadii dhib aad la kulantid aad u samartaa tiraahdo waay sababta saacadaha inaad buuxisid ayaad waxaad ku gaaraysaa laakiin dadkana ma yaqaanaan ay soo galaan ba waxaan waxay ku leeyihiin waa inaan bartaa waa inaan haaya waa inaan keenaa waa inaan dhaqsi adduunka kama shaqay saa marka qodobka ugu horeeya waa xirfadda koowaad aad baranaysid waa inaad barataa
timingka ama timeka waqtiga sida loo isticmaalo ee waqtigaada looga faa'iideysto iyo wax kasta aad doonaysid waqti loo geliyo maanta imisa qof ayaa doonaysa inay lacag samayso imisa qof oo ani idaawan doonto ama hadda idaawanayso ayaa doonaya inay lacag sameeyaan online lacag ka sameeyaan dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta haddaad la hadashid wuxuu ku leeyahay qof walba wuxuu ku leeyahay sidaan online lacag uga sameynaa laakiin imisa waqti ayaa iga galaysa imisa saacadood mise imisa bilood mise imisa sano ma dhahay tusaale bada idin soo qaato markaan soo bilaabay barnaamijyadan online 2017 2017 markaan soo bilaabay waxa ugu horeysay ee aan ka bilaabo waxay ahayd koorso aan online ka gatay oo Mareykan aan ka gatay koorsadii labaad oo ii xigtay waxay ahayd forex inaan gato waxa ii xigtay akademiyada aan ku biiro oo ahayd cryptocurrency inaan barto halkaas ay iga soo bilaabatay lacag ma sameyneynin koorsooyin aan qaadanay waqti aan gelinay buugag badan aan akhrinay waqti aan gelinay 7 sano ilaa in ka badan igu qaadatay inaan lacag sameeyo inta saacadihi aan soo gelinayo iyo wixii aan soo geliyay ay hadda xaadir ii noqday laakiin waqti aan geliyay Soomaa maana dhihin lacag ma helaa hadda lacag ma sameynaa ma dhihin waxaan dhahay cilmigan iyo noloshan isaan u barto ama ganacsi aan u bilaabo barnaamijyada online aan ku shaqeysto waa inaan wixii bartaa waqti aan geliya sanad bay ii soo dhiibays adiga marka maanta raba adoo orday inaad soo gasho online adoo orday lacagna ka samaysid adduunka ma jiro quick rich wax la dhaho Roma has not built one day Roma laguma dhisin hal maalin Muqdisho hal maalin laguma dhisin waxa la soo galiyay waqti badan noloshana waa sidoo kale waqti ay u baahan tahay soo hadda kadib markaad aragtid waxaan markaad soo gashid waxaad tiraahdaa okay waqti ayay u baahan tahay imisa maalmood ay ugu qaadan kartaa imisa bilood ay ugu qaadan kartaa imisa sano ay ugu qaadan kartaa waa inaad waqti gelisid waqtiga aad gelisid waa inaad ka faa'iideysatid waa qodobka koowaad ama xirfadda koowaad ee maanta aad baranaysaa labada nooc ee waqtiga loo isticmaalo qodobka labaad ee aan rabo maanta inaan idin la wadaago oo inaad ka faa'iideystaan aan rabo wuxuu yahay